waxay dembiile Sayid Cali Macalin Daawud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna qisaastii marxuumad Luul Cabdicasiis Maxamed waxay ku heshay eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud dembiga ku xusan qodobka 434 waxayna ku xukuntay dembiile Sayid Cali Macalin Daawud dil toogasho ah maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka xukunkan waxa lagu soo saaray magaalada Muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha 9aad 2024 maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qaybteeda ciqaabta oo ka kooban 5 garsoore waxay maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha 9aad 2024 u fadhiisanaysaa gal dacwadeedka ay sumadiisu tahay 10/2024 ee u dhaxeeya eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud kuna eedeysan qodobka 434 xeerka ciqaabta guud oo ay qareeno yihiin Cali Xalane علي محمد جبريل هي محمد عبد الورسامه midna ku ah qaranka Soomaaliyeed oo matalayo xafiiska qariiqaanka guud ee dawladda xafiiska xiraliyaha guud ee dawladda maxkamaddu waxay ku dhawaaqaysaa maanta insha Allah taala go'aankeedii ku salaysnaa asbaabtii ay dhageysatay fadhigii koowaad ee dacwadan ee howlka kan ka qabsoomay 24kii bishii 8aad 2024 بسم الله الرحمن الرحيم محكمة سرة جمهورية فدرالك الصومالية مركي أي سقط تدير ودرستي أرشيغا عبشرة أسباب تأذي سنها يرعتين تا قرينة الدفاع درستينا ضد أفيدي أي كسو جديد محكمة سرة دالك هورتيدا عبشرة ونحر كيدوها كو إن عبشرة أي سلقويهين حرفها طاء يدا فقرة اللباد قلب كاللبا بقول صدن يلبا حيرك هبك عقابك الصوماليات oo sheegaya in maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ay markii ay dacwadan qaadaysay ama xukunkeedu ku xadgudbay sharciga ka gaabisay arrimo dacwada muhiim ah oo dhinacyada midkood ama maxkamaddu ay soo jeedisay xukunku aanu ku fadhiyin asbaab sharci ama asbaabta xukunka loo cuskaday aanay ku filayn laba in xukunka maxkamadda rafcaanku uu leeyahay 3 waji oo iskhilaafsan iskana hor imanaya dhanka dabaqada sharciga macnawiga shariicada islaamka iyo madhabka shaafiiciga ee dalkeena looga dhaqmo saddex in maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ay ayiday xukunkii maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo aan dib u dhageysan wixii maxkamadda gobolka ka dhacay taasoo khilaafsan faqradaha baaca ee faqradda labaad ee qodobka 231 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed afar in maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir aanay soo koobin dhacdada iyo qodobada sharci ee uu ku saleysan yahay xukunku saafna ay ku khilaaftay qodobka 121 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed shan in xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir lagu dhisay qariino oo cadeynaan toos ahayn male iyo loo qaateen taasoo khilaafsan qodobada 110 163 oo xafiiska xiraalinta ku waajibinayay inay si aan shaki maangalay ku jirin ugu cadeeyaan dambiga eedeysanaha lix in xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir khilaafsan yahay dhammaan afarta madhab ee fuqahaada islaamka faqradda saddexaad qodobka 107 ee dastuurka ku meel kaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo faqradda labaad qodobka saddexaad ee xeerka nidaamka garsoorka toddoba in la waayay cadeyn xukunka lagu dhiso saasirteed ay ahayd in la fuliyo qasaamada ama dhaarta ka dhalata lawska ama tuhunka iyadoo ehelada dhibanaha
konton dhaarood la marinayo hadday diidaanna dhinaca eedaysanaha loo wareejinayo maxkamadda sare markii ay si mugla u daristay jawaab celinta dacwadoogista oo nuxurkeedu yahay in dhammaan arrimaha cabashada saldhigga looga dhigay aanay sharciga waafaqsanayn maxkamadda sare markii ay dul istaagtay daristayna xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee la durayo ee sumadiisa iyo taariikhdiisa kor lagu soo sheegay maxkamadda waxa uu caddaatay kow in qareennada difaacu aanay si cad u iftiimin sida xukunka loogu dhisay arrimaha iskhilaafsan ama isburinaya ee ay ku doodeen in xukunku ku dhisan yahay laba in xarfaha ABC faqradda labaad ee qodobka 231 xeerka ciqaabtu aanu maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ku waajibinayn inay dib u dhageysato dhammaan wixii ka dhacay maxkamadda gobolka banaadir balse uu ikhtiyaar u siinayo inay sidaas yeeli karto cadeymo cusub qaadi karto marag hore loo dhageystayna dib u dhageysan karto marka uu arrin cusub ka marag furayo maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir iyadoo adeegsanaysa awooddaas ikhtiyaariga ah ayay dacwadan si dhammaystiran dib ugu dhageysatay cadeymo cusub qaaday si ay u gaadho go'aan cadaalada sidaas darteed maxkamaddu ma khilaafin faqradda ay qareennada difaacu cabashadooda saldhigga uga dhigeen saddex in si waafaqsan xarafka daa faqradda koowaad qodobka 221 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir si cad u soo koobay dhammaan dhacdooyinka dacwadda qodobada sharci aayadaha quraanka iyo axaadiista xukunka lagu dhisay saas maxkamadduna aanay khilaafin qodobka in xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir aan khilaafin faqradda saddexaad qodobka 107 dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo faqradda labaad qodobka saddexaad ee xeerka nidaamka garsoorka sababtoo ah wuxuu xukunku ku qotamaa asbaab sharci oo maangala shan in xukunku aanu khilaafin qodobada 163 xeerka habka ciqaabta eedeysanuhana si aan shaki maangalihi ku jirin dembiga loogu cadeeyay in heerka cadaynta aanu shaki maangalihi ku jirin aanu micnaheedu ahayn cadayn gabi ahaanba shaki ka maran balse ay tahay cadaymo xoogan qancinaya qalbiga qofka maangalka kana saaraya sugnaan la'aanta ku riixi karta inuu rumaysto si ka duwan daliilada dacwadoogista lix in dooda in qariino oo kaliya loo hayo eedeysanaha aanay ahayn mid sharciga iyo dacwadan waafaqsan waayo in faldambiyeed gudis ah dhacay eedeysana Sayid Cali geystay dhaawac culus ka soo gaaray horiisii Luul Cabdicasiis waxa garsoore hortiisa si iskiisa uga qirtay eedeysana Sayid Cali saas darteed in faldambiyeed dhacay eedeysanuu yahay qofka falka geystay dhaawac culusna dhibanaha ka soo gaaray midna uma baahna in qariino lagu cadeeyo toddoba in marxuum Luul Cabdicasiis u dhimatay dhaawacii dabka ka soo gaaray oo 90% jirkeeda gubay gaadhay lakabka saddexaad ee jirkeeda chanska badbaadaduna 10% kaliya ahaa dhakhaatiirtii gacanta ku hayay ayaa maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir koor cadeeyay waana tahay u cuskatay in falka gubista iyo dhimashada dhibanaha uu xiriir toos ah ka dhaxeeyo sideed in arrinta la xiriirta qasdiga ama ujeedka faldambiyeedka laga leeyahay aan marna lagu sugi karin markhaatiyo tiradoodu haba badnaatee maadaama cid aan Allah subxaanahu wa ta'aala ahayn aan ogaan karin waxa qalbiga qofka ku jira taas bedelkeeda qasdiga ama ujeedka dambiga laga leeyahay waxa lagu sugi karaa oo kaliya in qofka falka geystay qirto inuu si kas ah falka u galay ama in lagala soo dhaxbaxo duufaha ku xeeran dhacdada eedeysanaha habdhaqankiisa talaabooyinka uu qaaday falka ka hor falka dhexdiisa falka kadib goorta uu falka geystay sida uu falka u geystay iyo aaladda uu falka ku geystay in eedeysanuhu qirtay in isaga iyo horiisii dhibana Luul Cabdicasiis Maxamed oo muran iyo ismaan dhaaf maray
murankoodu ka dhashay arrin cadho dhalin kartay intuu cadhooday baxay soona gatay shidaal gubay goor habeen ah qol ka mida guriga ay ku noolaayeen isaga orihiisii caruurteeda isagoo isticmaalaya shidaalkii uu soo gatay markii uu falka geystayna ka baxsaday goobtii iyo guud ahaan magaaladii uu falka geystay taas ayaa si buuxda u caddaysay inuu falka ku galay si kas ah si dhammaystiran ugu diyaar garoobay inuu geysto il kas ah intaas waxaa dheer inuu si cad u suuraysan karay dhibka iyo khasaaraha ka dhalan karay falkiisa oo goor habeen ah guri la joogo gubay haddaba maxkamadda rafcaanku iyada oo duruufahaas oo dhan xeerinaysa dabaqaysana qodobada 138 iyo 143 xeerka habka ciqaabta ayay eedeysanaha ku heshay inuu geystay il kas ah 9 qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuhunku in qasaamada ka dhalata lowska ama tuhunka ay timaado kaliya marka la helo qof la dilay cid dishay la aqoonsan waayo jira tuhun laga qaba inay dilka geysatay cid deegaanka oo cadaawad kala dhaxayso dhinaca dhibanaha iyaguna dafiraan sidaas darteed dacwadan ma jiro qof la dilay oo cid dishay la garan waayay cidna lagu tuhunsan yahay taas bedelkeeda waxa dhacay fal dhimasho sababay ciddii falka geysatay la aqoonsan yahay isna qirsan yahay inuu falka geystay sidaas darteed maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir waxay ku waafaqday sharciga inaanay samayn qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuhunka 10 in sida ku cad jawaabaha kor ku xusan ay maxkamadda sare uga jawaabtay dhammaan asbaabii cabashada ee qareennada difaaca cabashadoodu aanay waafaqsanayn faqradda 2 qodobka 232 xeerka habka ciqaabta oo loo cuskaday asbaabta cabashada ee ay ku dureen xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee sumadiisa iyo taariikhdiisa kor lagu sheegay xukunka maxkamadda marka xukunku dhawaaqdo waxaa la farayaa qofna inaanu wax talaaba iyo fal midna aanu samayn xukunka maxkamadda asbaabta kor ku faahfaahsan darteed maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ay diiday cabashada eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud ee ku taariikhaysan 15 bisha 6 2024 iyo raacsiinta qareennada difaaca ee sumadeedu tahay 136 kuna taariikhaysan 2 bisha 7 2024 lidna ku xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee sumadiisu tahay baxa 16/2024 soona baxay 15 bisha 5 2024 maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka xukunkan waxa lagu soo saaray magaalada Muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha 9 2024 wabillahi tawfiiq